السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كورسكا عصب اللي يرادو فارماكولوجي. marka guud ahaan pharmacology waxaan u qaybin doonaa general pharmacology iyo systemic ee loo qaybiyaa. Marka maanta waxaan bilaabaynaa chapter 1 qaybta general pharmacology gaar ahaan introduction ku saabsan pharmacology-ga. Marka qaybtan introduction-ki introduction-ku wuxuu ka kooban yahay definition badan kaasoo soo laaban doona intii lagu guda jiro casharka. Marka sababta introduction sameynayno waa shaygan ama ereygan hadduu soo laabto suusan kugu noqon shay cusub. Marka definition-ka ugu horeeya waa pharmacology. Markaynu qeexayno pharmacology waa the study of drugs and their action on living organism. Waa barashada daawooyinka iyo actionka halala ku dul ama actionka ka qabtaan living organism ama actionka u qabtaan. The term pharmacology erey pharmacology asal ahaan saad garanaysaan inta badan ereyada cilmiga waxay ka yimaadaan Greek words. waa two Greek words waa laba erey Greek waa pharmakon oo loo jeedo drugs daawooyinka and logos for the science and study. Marka labadan erey markii la isku geeyay waxay noqdeen pharmacology oo macnahooda guud waa barashada daawooyinka oo pharmakon oo drug iyo logos barashada. Sidoo kale group kale waxay ku qeexeen barashada daawooyinka iyo actionkooda on living organism. Qaar kale waxay ku qeexeen waxay yiraahdeen waa science-ka la xiriira mechanism of actionka daawadaasi siday u shaqeyso, uses waxyaabaha loo isticmaalo, adverse effect adverse effect waxaa la yiraahdaa daawadan guud ahaan waxaa jirta shaqo loogu talagalay qabato. Marka shaqadaasi ay qabatay maaha shaqo lid ku ah ama side effect adverse effect la yiraahdo shaqada tusaale ahaan waxaad u isticmaasho madax xanuun waxay kugu keentay calool xanuun. Marka calool xanuunkaasi daawada kugu ay darteeda daawadaad cuntay calool xanuun kugu dhacay waxaa la yiraahdaa adverse effect. Uses nooca loo isticmaalay iyo fate of drugs in animal and humans waxyaabaha fate ahaan ama saameynta ay ku yeelan karaan animalka iyo humanka whether ma positive ay u keentaa ama negative ba ka waran if the humanka haddii female ay tahay pregnant tahay daawadaasi waa qaar kale sida ay ku qeexeen. weli definition-ka ayaa noo sii socda. marka waxa clinical pharmacology hadda waxaan soo qeexnay waxay tahay pharmacology. marka clinical pharmacology-gana waa the study of drugs waa barashada daawooyinka in patients or in health volunteers. waxaa la yiraahdaa barashada daawooyinka ma iyadoo loo isticmaalay patient ama qaar kaloo volunteers. tusaale ahaan daawada markii la soo saaro intaan suuq la gelin waxaa la sameeyaa baaritaan ku saabsan daawadani boqolkiiba inta ay waxa ay keento boqolkiiba waxa inta ay daweyso ayaa la sameeyaa. marka qaabka lagu sameeyo waxaa la yiraahdaa clinical pharmacology inaad patient oo cudurka qaba oo daawada loo soo saaray aad siiso kadibna aad ogaato tusaale ahaan waxaad siisay 100 qof patient boqolkii qofood daawadaas waxa ku caafimaaday ilaa 70. marka waxaa leedahay boqolkiiba 70 daawadaasi waa daawo fiican saas ay suuq lagu geliyo. ama dad oo caafimaad qaba oo volunteers ayaa jira kadib waxaa la ogaanayaa symptoms ay ku keenaan symptoms-kaas ayaad eegaysaa. waxaa kaloo jira definition of drug. waxaan soo qeexnay pharmacology waxay tahay and clinical pharmacology sidoo kale drug waxaa lagu qeexaa waa any substance that brings about a change in biological function. waxaa la yiraahdaa shay walbo isbedel ku keena ama u keena biological functionka jirka which is given to humans either daawada waxaa la siiyay ama waxaa la siiyaa human bini'aadam or animals xayawaanka with the intention of either loo jeedo to relief of pain in hala qofka xanuunayo laga dulqaado, eliminate infection meesha jira laga saaro, improve health qofka wax dhibaato gaar ma qabo laakiin waxa loo isticmaalaa inuu improve health afar like vitamins oo kale. sidoo kale daawada waxaa loo siiyaa to investigate the function of the body in function of the body daawadan lagu investigate why some drugs ay jira qof marka la siiyo oo kale kadibna haddii cudurka uu qabo oo kale symptoms-ka ay worsen gareeyaan qaar kale oo cudurka ama uusan qabin symptoms-ka uu relief gareeyaan. marka daawo waxaa la yiraahdaa shay walbo keena isbedel u keena ama ku keena biological functionka waxaana loo isticmaali karaa kuwan soo socda. waa tusaale qaar kale badan way jiraan to relieve pain, eliminate infection, improve health and investigation the function of the body. sidoo kale daawada qof markuu liqo waxaa jirta daawada meel walba iskagama shaqeyso. marka the molecule interacts with a specific molecule in the biological system
marka daawada qof markuu lagu xaajiro molecule ama specific molecule jirka ku jira kaas daawada la shaqo receptor la yiraahdaa daawada markay gasho receptor ay qabsato haddaan receptor jirin daawada waxba qofka jirka ma qabato dose maxaa la yiraahdaa dose waxaa loo qeexaa waa specific amount of therapeutic agent waxaa la yiraahdaa amount gaara that can be taken at one time or interval dose waxaa la yiraahdaa daawo la qaato hal mar ama interval loo dhaxeeyo marka daawo walba waxay leedahay dose gaar loogu talagalay marka amount gaar loogu talagalay therapeutic in qofka ay therapeutic ama daawo noqoto either dose ka waxa la qaataa one time maalintii hal jeer ayaa la qaataa or ama interval muddo ay u dhaxaysa 3 saac loo dhaxaysiya 4 saac 5 saac loo dhaxaysiya therapeutic ama pharmacotherapeutics ma la yiraahdaa waa medical use of drugs in daawadan loo isticmaalo as medical ahaan ayadoo loo jeedo muhiimaduna ay tahay in the extension of the knowledge gained from pharmacology to the rational use drugs in treatment marka therapeutic and pharmacotherapeutic waxaa loogaan karaa waxaa loo isticmaalaa as medical use drugs loo isticmaalaa muhiimada laga leeyahay waxay tahay in la fahmo daawadan in la fahmo iyo siday cudurrada daweyso waxaa kaloo jira toxicology waxaa leedahay waa is the science that deals with the poisons and their effect and with the problem involved toxicology waxaa leedahay daawadan la qaatay either waxay keeni kartaa poison iyo saameynta ay ku leedahay iyo saameynteeda iyo problem ay leedahay marka toxicology waxaa la yiraahdaa qofkan daawada haddii uu cabir dooskii loogu tago ka badan hadduu qaato oo kale ama some drugs ayaaba toxic iska ah marka waa barashada maxaa la yiraahdaa poisonska iyo effectigooda iyo problemka related leeyihiin marka poisonsku are substance that cause harmful poison waxaa la yiraahdaa waa shay walbo keena wax dhibaato dangerous or fatal symptoms in living substance wax walbo dhibaato ku keena nooluhu ayaa la yiraahdaa ama poison ayaa la yiraahdaa many drugs in large doses daawooyin badan ee ah large dose markii cabirkooda ama dose loogu talagalay ay large yihiin ama ka badan yihiin may act as poisonous waxay u shaqeeyaan as poisonous some drugs waxa laga yaabaa markii ay specific drug ama drug amount gaar aad qaadato ama qayb yar ku filan qaadato maybe waxay noqotaa therapeutically but if haddii large dose loogu talagalay haddii laga badiyo maybe as poison ay noqotaa haddaba in generally pharmacology markaan ka hadlayno waxaa loo qaybiyaa two branches loo qaybiyaa qaybna waa pharmacokinetic ee leedahay qaybna waa pharmacodynamic marka daawadaasi intaan ku guda jirno course-kan waxaan ka sheekeyn doonaa qaarna waa pharmacokinetic marna waa pharmacodynamic pharmacokinetic waxaa la yiraahdaa waa the study of absorption barashada absorptionka daawada distributionka metabolism and excretion waxaa loo soo gaabshaa ADME for absorption distribution waa metabolism and excretion waxaa loo jeeda daawada markaad qaadato either root-ka doonta isticmaal either oral tusaale hadaad ka qaadato from oral ilaa iyo meesha absorption laga sameynayo absorption ayaa la yiraahdaa distributionna halkii absorption laga sameeyay ilaa iyo blood streamka la geynayo waa distribution and metabolism ayaa lagu sameynaya kadibna jirka excretion waa laga saaray jirkii sidoo kale pharmacokinetic waxaa lagu qeexaa what the body does to the drug jirka daawada wuxuu u qabto maadaama daawada aad isticmaasho daawada waxay u baahan tahay in modification lagu sameeyo ama qaabkeeda la bedelo taasina waa pharmacokinetic waa waxa jirku wuxuu u qabto daawada sidoo kale waxaa la yiraahdaa pharmacodynamics markii daawada afarta qaybood ama inta loo sameeyo waa aydan qaybta kale pharmacodynamic la yiraahdaa pharmacodynamic waa the study of the biological and therapeutic effect of drugs waa shaqada ama therapeutically daawada effect ay leedahay sidoo kale waxaa la yiraahdaa what the drug does to the body daawadu jirka waxa u qabato marka hore jirka shaqeeyay daawadii waxba u qabtay kadibna daawadii ayadana jirka waxa u qabanaysaa waa what the drug does to the body